adduunka media madasha dhaqanka iyo dhacdooyinka halkan waa adduunka media oo kala socotaan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay dunida qodobada saakaan idin helin kuwada u door karoon waxaa kamid ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan waxa uu sheegay inay ku hungoobeen inay sii daayaan wasiirkii amniga ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan waxa uu sheegay in aqoon-yahano iyo ganacsato iyo dad kale oo bulshada kamid ah inay u direen magaalada Muqdisho si ay xal waara u helaan loona sii daayo wasiirkii amniga ee maamulka Jubbaland wasiir Janan dhinaca kalena bal hadii aan eegno Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu ku sugan yahay xalayna uu ku hoyday caasimada gobolka Bakool ee Xudur wuxuuna Ra'iisul Wasaaruhu la kulmay qaybo badan oo kamid ah bulshada iyo sidoo kale maamulka gobolka waxayna ka hadleen dhinacyo badan oo ay kamid yihiin sugidda dhanka amniga iyo sidii hay'adaha caalamiga ay gargaar u gaarsiin lahaayeen qaybaha dawladda iyo maamulka Koonfur Galbeed ee gacanta ku hayaan ee kamid ah gobolka Bakool waxaana dhalinyarada sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo dhammaan maamulka mas'uuliyiinta gobolka ugu baaqay inay iska kaashadaan sidii deegaanada gacanta ay ku hayaan al-shabaab looga saari lahaa gacantooda waxa uu sheegay in loo baahan yahay waqtigan in lagu hambaliyeeyo maamulka degmada Xudur oo uu ku sheegay in ay sameeyeen dadaal weyn oo ku aadan sidii ay ugu shaqeyn lahaayeen baahiyaha kala duwan oo bulshada gobolkaasi ku nool ay u baahan yihiin dhinaca kalena bal hadii aan eegno wararka adduunka intiisa kale inooga imaanaya shirkadda Apple la yiraahdo waxa ay soo saartay taleefanadii ugu dambeeyay casriga waxayna waqtigan soo saartay iPhone 11 amba iPhone 11 Pro waxaana lagu sheegay noocyadan yihiin noocyadii ugu qaalisanaa markii loo eego ay Apple shirkadda la yiraahdo ay soo saarto waxayna sheegtay in dadaal dheeri ay ku bixin doonto sidoo kalena in ay soo saarto moobeelo noocaas oo kala dhinaca kale bal hadii aan eegno madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump wuxuu xilkii ka qaaday markii loo eego taliyihiisa dhanka amniga waxa uuna sidoo kalena sheegay in dhawaan la soo magacaabi doono qofkii qaban lahaa jagadaas John Bolton oo muddo u ahaa markii aan eegno la taliyaha dhanka ammaanka madaxweyne Trump ayaa waqtigan waayay xilkiisii mar uu la hadlayay amba uu soo dhigay qoraal bartiisa Twitterka Mr. John Bolton waxa uu sheegay inuu codsigaas asaga u gudbiyay madaxweyne Trump waxa uu sheegay inuu ku yiri hadal ku soo celin ahayd inay ka hadli doonaan arrintaas iyo arrimo kale laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay in xilkii gabiyaanba uu ka qaaday John Bolton oo ah la taliyihiisa dhanka amniga guud ahaan waan geynta wararkii ugu waaweynaa dunida markii aan eegno oo kala socoteen adduunka media inta dib u kulmi doono kulankan xiga nabadgelyo adduunka media madasha dhaqanka iyo dhacdooyinka